تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب. بسم الله الرحمن الرحيم. daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkii horumar ummadaada oo aad ka daawanaysaan TV caalamiga ah Universal TV. caawa waxaan kusoo qaadanaynaa barnaamijkeena muhiimadda isqurxinta macna ay u leedahay guurka ama lamaanaha inay isqurxiyaan. macna nabigeena Allahumma salli alayhi wuxuu yiri macna inna Allaha jamiilun wa yuhibbul jamaal, yani ilaahay waa qurux badan yahay wuxuuna jecel yahay inuu macna in la isqurxiyo. macna waa uu jecel yahay oo nimcada iyo yani quruxda ay ka muuqato bini aadanka. waxaa jirtay sheeko ah nin Kuwaiti ah ayaa xaaskiisa ka dacwootay macna oo ay tiri ninkan xoogaa ima daneeyo oo macna sidii hore ma aha, ima daneeyo inta macna. marka ninkii qaadiga ahaa ayaa ninkii weydiiyey, wuxuu yiri maxaa saan kugu kalifay? markaasuu yiri maba isqurxiso, maba iscarfiso, macna sidaas darteed ayaa uga gaabsaday. marka ninkii qaadiga ahaa xaaskii weydiiyey, xaaskii waxay tiri waa isqurxin jiray, mar walba waa samayn jiray, laakiin ninkan kama hadlaynin dharkayga iyo quruxdiisa iyo yani waxaan isdahay nin oo dan ka leh ma aha, labiska iyo isqurxinta waa iska daayay tiri. marka qaadigii wuxuu ku qeyliyey ninkii, gabadhiina waa waaniyey. waxaa dhacday ninkii wuxuu yiri xaaskaaga markay dharka xiratay oo isoo carfisay ma ammaantay, ma u sheegtay, ma qadarisay? mayuu yiri adaa khaladka lahu yiri. waxaa lagaa rabay xaaskaagii inaad si daacadda ugu sheegto, markay isqurxiso aad dhahdo wallaahi waa qurxan tahay, si daacadda yani diracan aa wadatid iyo jirkaaga waa issoo saara maasha allahu tacaala. cunada markay kuu kariso yani cunada inaa ammaanto. macnaa waa jecelyihiin haweenka in comment laga bixiyo dharkoodii iyo waxoodii. commentigana mid waa fiican yahay, waa qurux badan yahay ma aha. yani dadka culummada guurka waxay leeyihiin si faahfaahinay jecel yihiin in loogu comment gareeyo oo macnaa looga warbixiyo. wallaahi waa ku nuureysaa, quruxdaada dhanay soo saareysaa, macnaa inaad ugu sheegto oo macnaa dharkeeda. sidoo kalena ragga waa inay isqurxiyaan. mathalan ibnu Cabbaas ayaa waxaa la yiri wuxuu marsan jiray, waa isubki jiray, xina iyo marsan jiray. markaasaa li ibnu Cabbaas maxaa isugu qurxinaysaa? markaasuu yiri macnaa waajib waaye inaan sida ayada isugu qurxinaysa inaan anigana isugu qurxiyo. يعني وإذا تحييتم بتحية فحيوا بأحسن منها, mid ka fiican. marka waa muhim raggana ayaga laftirkooda inay isqurxiyaan oo ay macnaa ay xaaskoodii isu labisaan. runtii markuu aroosku cusub yahay xoogaa waa arkaysaa labiska iyo isqurxinta, laakiin waxaa moodaa arooska kadib 2 sano kadib sheekadii waa isbedelaysaa. marka waxaa fiican qofka inuu isku dadaalo oo dhinaca qurxinta, isqurxinta iyo jirka iyo wax walba waa muhim. sidoo kale mathalan nabiga Allahumma salli wa sallam alayhi mar walba wuxuu jeclaan jiray ragga inay cayilka iska yareeyaan. mathalan ninkaagii cunada aad siinaysid macnaa cuno fiican oo mathalan cayilka yareynayo inaa siisaa fiican. mathalan anaga Soomaali haddaan nahay waxaan jecelnahay bariiska iyo baastada. bariiska xoogaa waa adag tahay in uu dhaqso shiidmo caloosha. waxyaabaha caloosha soo saaranna bariiska ayaa ugu wacan. wadamada Asiyaanka bariiska waa cunaan, laakiin koob yar inta lagu beega ayay cunaan. laakiin haddii aan Soomaali nahay ama dadka Bakistaanta ama xoogaa bariiska saxan weyn ayaan cunnaa. marka taasna waxay dhalinaysaa in calooshii ay soo buurato. sidoo kale baastadii iyo waxyaabaha burka laga sameeyo, culummada cuntada waxay dhaheen yani burka cad
jiro walba oo yimaaday burka cad markii lasoo warshadeeyey lasoo saaray ay imaadeen jirooyinka loo yaqaan kolestaroolka, sokorta. loogama dambeyn ayay dhaheen burka marka lasoo saaray iyo sokorta. marka burka cad waa laga roon yahay, baastadana burka cadaa laga sameeyey. marka in aan yaraysano, yacni waa la cuni karaa laakiin in yacni qadar yar. marka inaad isku dadaasho waa muhim. isqurxinta waa muhim. nabigeena ayaa amray xaaskaaga inaad isku qurxiso, lamaanihii inay isqurxiyaan si uu mar walbo jaceylkii iyo wixii uu jadiid u noqdo. marka dhibaatada hadda jirtaa waxay tahay xaasaskii markii aroos la tagaayo kaliya ayay labisanayaan, macnaa si oo dadka kale ay u arkaan quruxdeedii meeshii laga rabay in macnaa ninkeedii uu arko. sidoo kalena ragga qaarkood ayaga laftirkood munaasabaadka iyo waxaasay u labistaan. marka mar walbo inaad adigana qofka ragga ah inuu isqurxiyo. lama rabo isqurxin oo maalan dheeraad ah, maalan in aa goonka jarto oo aa wax mariso iyo taas waa laga fiican yahay. sidoo kale ragga inay daawada oo madoobeysada ay marsadaan cirada si ay u qariyaan, taas waa la diiday. waa la ogol yahay inaa cilaan marsato. waxaa jirtay xaflad aan tegey, nin waxaa jiray isku xaafada ahayn oo iga weyn oo 10 sano 15 sano iga weyn oo xataa ibaray sida garaangarta loo wada iyo baabuurta loo tacluugo. markaan arkay waa yaabay ninkiioo timihiisa madow, garkiisa madow, oo iga dhahay war baazi waa duqoodiya maxaa kugu dhacay? anaa yaabay. marka dambe uu ii sheegay, wuxuu yidhi warniyo daawada oo madoobeysada marsaday. marka daawada madoobeysada culummada waa diideen, diintana ma ogola. macnaa runtii macnaa isqurxinta ka sokow xataa dibadda kaliya ma aha, gudaha inaad yacni maalan cilmiga ku dadaasho oo aad wax akhrisato oo aad yacni dabeecadaadii wax ka bedasho, meelihii aad ka liidatay. maalan haddii aa ahayd nin xanaaq badan, xanaaqi inaad iska yareyso oo ku dadaasho. yacni isqurxinta gudaha iyo dibadda, dabeecad ahaan inaad iska qurxiso, dibaddana dhar ahaan inaad iska qurxiso. marka waxaa naga waana ah soomaaliyey isqurxinta ha joojinina. soomaalida runtii waa dad qurux badan, waa wadamada lagu tiriyo dadka quruxda badan. dumarkooda iyo raggoodaba waa dad qurux badan, laakiin quruxda waxay u baahan tahay yacni in la daryeelo. oo marka waxaan leeyahay isqurxiya ha joojiniya, joogteeya isqurxinta, laakiin sida ilaahay ogol yahay in tasarruf badanna ma ogolo. yacni wax macquul ah inaad isku qurxisaan. jazaakum allahu khayran. intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. ilaahay guurkeena guur qurux badan ilaaha ka dhigo, wadankeenana wadan qurux badan ilaaha ka dhigo, qarankeenana qaran qurux badan ilaahay ha ka dhigo. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تهتف باسمك الدنيا بألوان من الشعر، وتغرد كل ما فيها وتزهو في ربى السحر، وزون العز ترسلها بكف الحب.